السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiin baa meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku talagalay maanta waa Arbaca waa barnaamijkeeni habeenimo waa barnaamijka aynu ku soo aruurino macluumaadka wararkii ugu waaweynaa wixii dhacay saacadihii la soo dhaafay taariikhdu waa 6 bisha Maarso sanadka 2024 haddaba barnaamijkeena habeenimo waxaynu idinkugu haynaa dhowr qodob oo muhiim ah maxkamadda caalamiga oo fariin culus loo diray ka timid wadanka Koonfur Afrika oo ku wajahan Israa'iil waxa ay ka wado Gaza South Africa waxay u muuqataa inaanay wax dhaga jalaq u siinaynin warar kala duwan oo soo baxay oo la lahaa in ay markaa codsiyo u gudbiyeen dawladda waaweyn inay ka joojiso dacwadda Israa'iil haddaba sheeko ku saabsan war cusub oo South Africa ay soo saartay ayaan barnaamijka idinkula socodsiin doonaa waxa soo kale aan barnaamijka idinkugu hayaa Israa'iil oo qorshe cusub u dhigtay qaabka gargaar loo geynayo Gaza maalinta Jimcaha ayay sheegtay inay u fasaxi doonto waqooyiga Gaza ilaa dhowr baabuur oo xamuul ah dhanka kale oo aad la isu weydiinayo Israa'iil iyo Mareykankuna ay ka hadlayaan waxay tahay dhinaca badda in la furo oo gargaar laga soo geliyo dhinaca badda haddaba sheekadaas maxay ka bedeli kartaa oo dhinaca Qubrus inta laga soo raro gargaarka oo Gaza la keeno ayadana warbixin baan idinkaga hayaa waxa soo kale barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doonaa dawlado kale oo mar kale gargaar dusha sare kaga daadiyay magaalada Gaza iyo waliba warar kala duwan oo ku saabsan xuutiga weerarkii uu ku qaaday markabka Mareykanka oo Mareykanku ay lahaayeen waxba ma gaarin wararkii hore soo baxay ayaa hadda waxa la sheegayaa in dad ay ku dhinteen markabkaas kuwa kalena ay ku dhaawacmeen markii gantaalaha xuutigu ay si qatara ugu dhaceen meelo muhiim ah oo markaa halis badan oo markabka gudihiisa ah haddaba tafaasiil ku saabsan wararkii ugu waaweynaa badda cas oo xiisadeedu maanta kacsan tahay ayaanu barnaamijka iyana ku soo gudbin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howladaynadoodu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer wixii faahfaahin boqolanta kuugu dhow ee IBS bangi kulanti wanaagsan mar kale khiyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo iyadoo qodobo kala duwan ay inoo soo socdaan balse marka ugu horeysa waxaanu ka hadli doonaa howlaha gargaarka loogu talagalay Gaza xaaladda aad bay u sii adkaanaysaa maalinba maalinta ka dambaysa nolosha wariyaasha ku sugan halka wararka ay ka soo dirayaan Gaza wadayaabaysa dadku macluul inay u baaba'aan ay qarka u saaran wax kasta waa la cunay caleemaha geedaha waa la cunay wax kasta waa idinkaga hadlay waa idin soo diray marka hadda adduunka oo dhan baa qaylo wuxuu leeyahay waxaan in la fiirsado baa marka hadda waxa leeyahay Israa'iil waxay aqbashay gargaarkii qaar kamid ah bal in loo gudbiyo waqooyiga Gaza marka maxay ka tari doonaa gargaar intee la eg maalintee qaabkee haddaba waxaynu galaynaa warar ku saabsan arrimahaas
haddaba waxaa leeyahay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay sheegaysaa in mas-uuliyiin Israa'iiliyiin ah ay ka hadleen Israa'iil inay qorsheynayso howlaha gargaarka u socda Gaza in loo wareejiyo dhinaca Qubrus oo badda la soo mariyo. haddaba warbixintu waxay leedahay xukuumadda Israa'iil waxa ay ogolaanaysaa howlaha gargaarka si toos ah in markaa ay uga yimaadaan Qubrus oo markaa Gaza ay soo galaan. Israa'iil waxay ogolaanaysaa dhanka kale maalinta Jimcaha ee soo socota inay sameynayso ogolaanshiyo 20 ilaa 30 baabuur oo xamuul ah inay u gudbaan dhinaca waqooyi oo markaa macluul aad u daran laga soo sheegayo magaalada Gaza. dhanka kale xukuumadda Israa'iil waxaa la sheegayaa in ay ka shaqayn doonto sidii loo abuuri lahaa qayb dhinaca badda ah oo markaa Qubrus ilaa Gaza ku saabsan oo hawshaas halka gargaarka la soo marsiin doono. Israa'iil maalinta Axadda ah ayay waxay sheegtay inay bilaabi doonto inay baaritaan ku samayso gargaar la sheegay inuu hadda ku sugan yahay Qubrus oo dawlado qaar ay halka geeyeen. inta aan loo soo qaadin Gaza, Israa'iil waxay sheegtay inay wax walba baarayso oo markaa Qubrus ay baaritaanka ku sameynayso. wararka marka gargaarka ku saabsan dhowr noqdo oo muhiim ah ayaan ka soo qaadanaynaa. midda ugu horeysa waxay yiraahdeen maalinta Jimcaha ay soo socota waa bari dambe waaye. bari dambe oo Jimcaha 20 ilaa 30 baabuur ayaan waxaanu gelinaynaa dhinaca waqooyi Gaza ee macluush. 20 ilaa 30 baabuur waxba kama gasho meeshaas sida wararku sheegayaan. wax ay ka gasho ma leh. dadku waa gaajaysan yihiin, waa baaba'san yihiin. marka waxay leedahay marka intaasaan sii daynaynaa 20 ilaa 30 baabuur. dhanka kale marka waxaa la isweydiinayaa sababta Israa'iil iyo mas'uuliyiin Mareykan ay ugu celcelinayaan oo ay leeyihiin gargaarka Masar iyo meelahan yaala hala wareejiyo dhinaca Qubrus hala keeno hadda kadib wixii gargaara badda ha laga soo geliyo. ma ogaan kartaan sheekadaas? hadda koor waa ka hadlay, waa idin sheegay. hadda koor waxaan idin sheegay warbixin sheegaysay sababta Israa'iil ay Qubrus ilaa Gaza u rabto. badda way ku adag tahay Israa'iil inkastoo maraakiibteeda dagaalka waxa kan ay halka yimaadaan, haddana Xamaas waxay haystaan droneska badda hoostooda mara oo qaatib billaahi ay ka joogaan Israa'iil oo maaragtay aysan u soo dhawaan karin xeebaha. waa aragteen xeebaha madaafiic ay ku soo garaacaan kaliya, laakiin dadku xeebta iska dhooban yihiin mararka qaar reer Gaza. marka badda way xoreysan tahay. eeriyada xeebaha Gaza aad ayay iskaga ilaalisaa Israa'iil. marka waxay rabtaa gargaara la keenaa inay inta tiraado ay halkaa marka ku soo dhawaadaan maraakiibteeda iyagoo dhahay waxaan galbinaynaa gargaarka. marka gargaarka iyo soo ku imaan kara Gaza iyo sheeko kale waa taas. marka waxay leeyihiin Axaddan waxaan bilaabaynaa wadamo reer Yuruba oo gargaar durbaba geeyay Qubrus. waa soo baaraynaa halkaas. marka hadda kadib jiiradaas hala soo maro, meel kale yaan gargaar laga soo gelin. marka qodobkaas isaguna wuxuu ka mid yahay wararka soo kordhay qaabka ay Israa'iil u doonayso gargaar in loo geeyo Gaza. marka wixii fakara aragta aga qabtaan sheekadan adikuna waa nala wadaagi kartaan oo qaybta commenteska ayaa ku soo qoraysaan. weli waxaynu ku jirnaa hawlihii gargaarka iyadoo ay noo soo socdaan warar kale. waxaan leeyahay maanta diyaarado kale ayaa dusha sare magaalada Gaza waxay uga daadiyeen raashin ayay ka daadiyeen oo macnaha gargaar ah ayaa halkaa lagu daadiyay. haddaba marka warbixin ay qortay goor dhaweyd wakaaladda wararka Anadolu waxay leedahay Masar iyo Imaaraadka waxay fuliyeen maanta markii saddexaad inay cirka ka soo daadiyaan gargaar ayagoo ku dul daadinaya magaalada Gaza. wasaaradda gaashaandhigga ee Imaaraadka ayaa bayaan ay soo saartay oo ay ku soo qortay boggeeda X ama Twitter waxay sheegtay inay fuliyeen markii saddexaad inay sameeyaan gargaar ay cisha dusha sare uga soo daadinayaan magaalada Gaza iyagoo isticmaalaya diyaaradaha ciidamada cirka Imaaraadka iyo kuwa Masar. waxaana gargaarkaasu ay sheegeen inay ku daadiyeen dhinaca waqooyi ee magaalada Gaza
halkaasoo laga soo sheegayo inay dhibaato macluul iyo gaajo fara badan ay ka jirtay. imaaraad marka waxay leeyihiin markii saddexaad ayaan cirka ka daadinay, laakiin mushkiladda meesha jirtaa waxay tahay imaaraad iyo masar iyo waxbaan daadinayna hadday yidhaahdaan israa'iil way ogoshahay, laakiin turkida waa lagu adkeeyey. saan ogeyn diyaaradoodii ilaa hadda waxay joogtaa Jordan, rarkii in laga gediyo mare oo Urdun ay qaado haddaan xal kale la gaarin oo iyagu inay daadiyaan ay ahayd. marka sababahaas oo dhan waa la isweydiinaya. dowladaha qaar israa'iil way u ogoshahay inay wax daadiyaan, dowladaha qaarna looma ogola. hadda Belgium oo kale iyo Turki oo kale iyo looma ogolaanin, faransiis iyo waa loo ogolaaday iyo waxaas way daadinayaan. Belgium sababta la isku haysto waxay tahay ra'iisul wasaarahooda toos uga hor yimid siyaasadda Israa'iil, wuu diidan yahay waxa ay wadaan wax ka jira male. dhowr meelood oo kala duwan ayuu ku cambaariyay Israa'iil. marka Israa'iil cid kasta oo maalin wax ka sheegta oo waxa ay wado diida, halkaas marka iyaduna ay ku qabanaysa. marka waxay tiri adigu ma daadinaysaa. waliba diyaarad military ayay wateen Turkiga iyo Belgium iyo waxaan diyaarado military loogu talagalay in wax lagu daadiyo ha sheegin, waa laga diiday. waa tahay qaybihii marka gurmadka intaas ayaan kaga gudbaynaa. waxay ahaayeen wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay. waayahay markan waxaanu u gudbaynaa koonfur Africa. koonfur Africa waxaa noogu wardambeysay warbaahintu ay ka hadasho markii Israa'iil jawaabta ay soo dirtay waa sir la yiri, koonfur Africa loo diray la yiri. koonfur Africa hadday soo jawaabtay haye koonfur Africa waa xanaaqsantaa, waxay leedahay maxkamadda warkiina maba shaqeynayo maxay tahay. haddaba marka aan idin tuso warbixin goordhow laga qoray, koonfur Africa waxa ay mar kale ka dalbanaysaa maxkamadda cadaaladda inay tallaabooyin dheeraada ka qaado Israa'iil. waxay sheegtay koonfur Africa maxkamadda cadaaladda adduunka inay qaado tallaabooyin degdeg ah oo dheeraada oo ka dhan ah Israa'iil. waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda cadaaladda inay soo saarto awaamiir cusub oo markaa Israa'iil lagala hadlayo dhibaatada ay ku hayso Gaza. waxaana halkaa lagu dhibaateynayaa dad tiradoodu ay gaarayso 2.3 milyan oo qof. marka waxaa leeyahay South Africaanku waayadan ma hadlaynin sidii warqada loo gudbiyay lalahaa macalinka weyn iyo xirta qaar ka mid ah loo diray, waa lala hadlay culayska ka daaya Israa'iil. waxaasaa la yidhi armay South Africaanku xoogaa iska aamuseena lalahaa. South Africaankii hadda waxay leeyihin maxkamadda dee wixiina hore wax ka shaqeynaa male, hadda awaamir cusub soo saara. nimankaan dadkay gaajaysiinayaan, way laynayaan, indhaha ka fiirsanaysaa, wax walbay samaynayaan. haye waa arkaysaa, haddaad wax tar leedihiin wax ka qabta waa kanaa laga qabanaa meesha. marka hawshaas iyaduna maxkamaddii halkaasee maraya. waxa keliya aan ka fahmayno waxa waaye South Africaanku weli inay positionkoodii ama booskoodii taagan yihiin oo ah inay Israa'iil wax walba ay ku dacweeyaan, laakiin xagee dacwada geeni meeshii maxkamaddii cadaaladda la sheegay halkaasee maraysaa oo South Africaanki mar walba ay ku celinayaan waxaan war maane war fiican soo saara. hawshaas halkaasaa kaga gudbaynaa. qodobka kale ee ugu dambeeya barnaamijka waxaynu ku eegaynaa maanta waxaan idiin sheegay Xuutiga Yaxyaa Sariic iyo wixii oo dhan idiin soo daayay inay 2 weerar oo khatar fuliyeen. midna way ku qaadeen ciidamada Mareykanka maraakiib ay leeyihiin, midka kalena markab xamuul wada oo Mareykanku leeyahay. waxaan warbixinteennii hore ee maanta ku jirtay in Mareykanka uu sheegay in markabkoodu uusan waxba gaarin, laakiin ay ka diiday hay-adda Ingiriiska ee qaabilsan amniga badaha oo ay tiri warkaasi wax ka jira ma jiraan, markabka gataalaha way ku dhaceen. weliba waxaa nagu maqaalo ah inay askarta baarkii shaqaalihii qaar laga dejinayo. marka warkaas halkaasuu ahaa. Xuutiguna waxay yidhahdeen annagu labada dhinacba weerar waa ku guulaysaneen, nagtaa ka gelina, gantaalaa la dhacnay dheh iyo drones. marka hadda wararkii way soo tarayaan Soomaha, warar cusuba marka waxay kasoo baxayaan weerarkii ay Xuutiyiintu qaadeen ayaa warar dheeraada ay kasoo baxeen.
واتاي مركا ورجيس كليرادو القدس العربي أيا وحو قرية لبكة ترسن شغالها مركبك حوتيغا أي ويررين أمريكان كلها أيا وحال الشيغيا إني دباتو سو غارتي هدبا تفاصيل ديرادا أيا أرنتها لغبحية وحال ليهاي صواريق أيي كويررين حوتيين تا ودك يمن مركب بديعة وذي أو مركب مريي بدل يرادو خليج العدن 4 مانتا أيي ويرر كقادين هذا مركب وحال الشيغيا شقاله للسعودي مركبك مid kamida inuu dhintay 6 ay dhaawacmeen waxana sheegaya xuutigu 24 saac ee la soo dhaafay inay fuliyeen weeraradaas marka u jeedaa warkii uu soo taray xuutiga warkoodu waa sax ingiriiska hay'adiisa warkay ku hadlaysana waa sax ameerikaankii marka waxba ma gaarin markabkeeni lahaa hadda wararkii oo dhan way isbedeleen waxa leeyahay shaqaalihii yaa qaar dhinteenba hadda waxa leeyahay hala dhintay 6 dhaawacantay warbaahinada qaar waxay leeyihiin laga yaabay tiraduna inta ka badan tahay marka khatar ku jira marka shaqaalihiisii nagta laga galiyay oo la dilay iyagoo markabka saaran markabka qasaaraha soo gaari kara ka warar barka ma sahlana marka xaaladdu markabka aad bay maaratay u cakrantaa la leeyahay warar kale inay ka soo baxaan laga yaabaa waliba markabka haddaan gurmad uusan helin inuu dago sidii kii ingiriiska oo kale isaguna badda uu ku dago marka xuutiyiintu iyagu maanta hore sii sheegeen barnaamijka hore ku soo qaatay inay weerarada furiyeen oo ay marka si fiican marka ay ugu dhacday sidii ay doonayeen inkastoo Mareykanka oo isagu faanayay oo lahaa markabkeygana waxba gaarin xamuulka waday kuwan kala gantaalihii lagu soo tuurayna waa qabqabtay droonkiina si fiican u yeelay soo u lahaa hadda sheekadii waa ka daba timid marka meeshaan iska daba wareeg ma jiro wariyaashan iyo hay'adahan warbaahinta shaqo kale ma qabaan waa soo qabanayaan wixii waa keenayaan marka barnaamijkeeni habeenimo inta ayaan ku soo gabagabeynayaa fakarkiina aragtidiina sida caadadayd noogu soo qoran qaybta comments-ka iyo fariimaha sidoo kale barnaamijka ay loobinina inaad like gareysaan oo aad share gareysaan haddii aad nagala socotaan Facebook iyo YouTube labadaba haddaad nagu cusub tahay YouTube-ka subscribe hay loobin haddaad ku cusub tahay Facebook-kana hay loobin inaad follow gareysid si aad mar walba barnaamijyadeena marka aan soo galayna aad u hesho inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo iyo maalmaha soo socda sida iyo nabadgelyo